xulka kubadda cagta Puntland ayaa macsalaameeyay koobka maamul-goboleedyada iyagoo ay galabta kulan xiiso leh ay la qaateen xulka kubadda cagta Galmudug. Xulka kubadda cagta Puntland ayaa markii ugu horeysay ku haraya semifinalaha koobka maamul-goboleedyada. Galmudug ayaa iyana dhigtay taariikh kale iyada oo markii ugu horeysay iska xaadirsay finaalka koobka maamul-goboleedyada. Ciyaarta ayaa si xawli ah uga bilaabatay garoonka Engineer Yarisow waxaana soo buuxdhaafiyay taageerayaal kala duwan kuwaasi oo kala taageerayay Puntland iyo Galmudug. ciyaarta ayaa ahayd mid xiiso badan waxa ayna labada kooxood soo bandhigeen fursado cajiib ah oo ay mid walba ku doonaysay goosha kulanka. Galmudug ayaa dhalisay goosha koowaad 3 daqiiqo oo qura iyadoo ay ciyaartu soconayso halka Puntland ay isla 6 daqiiqo ay dhalisay gool barbardhac. ciyaarta ayaa markaas si noqotay ciyaar xiiso leh kadib markii la yaabay daqiiqadaha yar ee lagu kala dhaliyay golasha. balse Puntland ayaa laga diiday gool iyada garsooruhu ciyaarta uu sii waday ciyaarta. Puntland ayaa goolkaasi diilinta ayay gashay balse ma jirin wax faar ah oo loo sameeyay. Galmudug ayaa dhalisay gool mucjiso daqiiqadii 19aad ee kulanka waxa ayna dishay rajada kulanka ay kala heed xulka Puntland ayaa heshay fursad cajiib ah waxayna soo bandhigeen ciyaar wanaag. xulka kubadda cagta Galmudug ayaa sidaas ugu baxay finaalka koobka maamul-goboleedyada iyagoo ay iswajihi doonaan maalinimada beriya labada xul ee kala ah Banaadir iyo Koonfur Galbeed ayaa maalinimada beriya iswajahaya iyaga oo ciyaaraya semifinalaha koobka. xulka Banaadir iyo Koonfur Galbeed kii soo baxa ayaa Galmudug finaalka ugu tagi doona. sidaasina waxaa kusoo dhammaan doona koobka maamul-goboleedyada.